ya hawbaan ku heli hawbaan ku heli hawbaan ku heli. waxaan ka hadlayaa qayb yar oo aan raba inaan ka yar ifiyo dhinaca taariikhda ee reerkan meesha la isugu yimid. reerkan agshada la yidhaaho waxa la yidhaha waa cawslafac. cawslafac macnaheega waxa weeye waa qabaa'ilka ugu da'da weyn leh ee soomaalida ayay ka mid yihiin. akisho waxa weeye curad baa la yidhaha magaceega dhabtaa curad baa la yidhaha. curad maxaa lagu yidhi? curad wuxuu ahaa cali buu ahaa, calina wuxuu ahaa madaxweyne curad u ahaa, madaxweyne dir buu curad u ahaa. kolkaa waxaa la yidhaha waa curadka direed ayaa la yidhaahaa, waa qolada ugu da'weyn. sida la og yahay ee agshe la og yahay waxay joogtay qabla alislaam iyo dhulkan joogtay, islaamka intii ka hor bay joogtay. waxaa jira oo la og yahay boqorradii xukumi jiray islaamka ka hor iyo kuwii xukumayey islaamka kadib iyo kuwan hadda jooga. saddexdaa qaybood iyo akisha soo martay. boqorradii xukumi jiray islaamka ka hor waxaa ka mid ahaa boqorka la odhan jiray boqorka koowaad. waxaa ku xigay gabadh la odhan jiray soomaalidu araweela u taqaano, laakiin la odhan jiray tadiin intalmey la odhan jiray ayaa ka mid ahayd. waxaa ka mid ahaa boqorkii la odhanayay yiir jariifar ayaa ka mid ahaa. intuba waxay ahaayeen islaamka ka hor. waxaa la yidhaha 250 sano intaan islaamka soo gelin iyo dhulkan joogeen. kadib kolkii islaamku soo galay waxaa jiray boqorraa jiray oo wakhtigii dagaal ku dhacay. waxaa ka mid ahaa ninka ayla buuri la odhan jiray, ninka biter bintalmuud la odhan jiray baa ka mid ahaa. iyaguna dagaaladii waxay ku dhinteen. islaam kolkuu soo galay dadkana bilaa diinta ahaa ayay ku dhinteen. kadib halkaa waxaa ka aasaasantay dowladdii adal la odhan jiray ayaa ka aasaasantay saylac ilaa herar. taasi oo u bilaabay ninkii la odhan jiray sheekh sacdidiin bani axmed oo aasaasay, oo hadda jasiiradda sacdidiin la yidhaha lagu magacaabo ee badda dhexdeeda saylac xagga xeebta ka xigta. dhulkanna mar la odhan jiray bari sacdidiin la odhan jiray. dowladdii uu aas-aasay qarni waxay ahayd kolka uu soo galay 1315 miilaadka 736 hijriga ayay ahayd. kolkaa dowladda waagaa uu aasaasay waxay soo gaadhay 25 bishii koowaad 1886 berigii mililig la wareegay ayay soo gaadhay. intaa u dhexaysay dowladda islaamka ee socotay ninka aasaasay wuxuu ahaa sheekh sacdidiin bani axmed. axmed gureyne wuxuu ku jiray dhexdoo 1542 baa la dilay, waxaana lagu dilay meesha weynagaaga la yidhaah. intii ka dambaysay laga soo bilaabo berigaasi uu dhintay ee la dilay axmed gure 3 sano kadib waxaa bilowda dagaalaa bilowday oo qabaa'ilkii dhulkan yaallay ay islaayeen oo isla baaba'een baa jirtay. akisha kolkaa adu aakhirkii 1600 bay jabtay, deedna way kala qaxday. gurra waagaasu ka tegey halkan uu gale caruuse u galay. wuxuu jooga 400 iyo dhowr sano iyo 50 sano meelahaas iyo gurra xaggaa jira. gurra lama odhan jirin qabaa'il akisha un bay ahaayeen, laakiin kolkuu xaggaa tegey ayaa magaca la bedelo caruuse u galay boqorkii la odhan jiray maandooyo. akisha waxaa la yidhaha 362 sano urur ma lahayn. laga soo bilaabo 1600 ilaa la soo gaadho 1920 waa wagii la aasaasay baha akisha wey. 80 sano hadda jirtaa. ducadan hadda aan joogno 80 sanay maraysaa. intii u dhexaysay haddaba 1600 ilaa 1930 ma lahayna urur ma lahayna akisho. way firiirsanayd. daba waa baha akisha inta halkan degan baan sheegaynaa, akishadan kale ma ah. kolkaa 1930 ayaa la aasaasay baha akisho. maanta 80 sana laga joogaa. waxaa la doortay suldaan odawaal liibaan ayaa markaa la doortay. kadibna waxaa ku xigay suldaan yuusuf odawaaba ku xigay. kadibna waxaa ku yidhi suldaan muxidiin hadda jooga. kolkaa horta taariikhda oo kooban akisha horta saasay ahayd. qabla alislaamna way jirtay, bacda islaamna way jirtay, burburna waa jira dhexda. kolkaa waxaa jira buug weyn oo ka qoran baa jira oo arrimaan lagu faahfaahiyey. halkan waa samari yaroon ka shexeeye, laakiin buug baa jira ilaa 6 fasal u kala kacaya oo dhaqanka iyo noloshoodu dhan ka hadlaya baa jira. kolkaa waxay ila tahay haddii dee
meel dee su-aal isweydiiya hadda ma joogno laakiin samari ahaan inay qabiilka ugu da'weyntahay dhulkan deganaa inay qabla alislaam joogtay inay bacda islaam kolkuu soo galan ay wakhtiga ahayd ay burburtay 1315 miilaadka in ciidamadii jabi ay yaman ka soo duuleen iyo qabaa'il kaloo isku jiray sidaana lagu qabsaday kolkaa 230 sano kolkii haddana joogtay ay dib u dagaal kale u bilowday dagaalkii axmed guri u bilowday kadibna ay burburtay